arjun horta ana waa la socdaa ad magaaladan barcad badan ina gacanta ugu safeys laakiin waxa ogaataa magaaladan hadda ujeedada inay laba qasanay ay tahay ina feejignaatida loo baahan yahay haddii rabti dad ina baabi'isid oo ay meesha nadiif noqoto 32 shirkadood markino aday cadow ku yihiin waxa la rabaa 32 shirkad ina nadiifisid laakiin ana nadiifisid macluumaadka indhahaagana lama hore iyo lama gadaal inay ku ahaadaan waay dadkaas oo ujeedna dad dambiiliyaal ah waay xaaladooda caadi ma aha ina waxa laga rabaa luqunta aad u gashid wax walba markaas ay okay naqahayaan ma ina waa iska socaa hadii dhahayd waa lagu dooxaa ما سنتنا مدن ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಲವೆಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆನೆದು ಹೋದಂತೆ ತಲೆಹರಟೆ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಲವೆಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆನೆದು ಹೋದಂತೆ ಆ ಅಮಲು ಗಣ್ಣಿನ ಅಂಧಗಾರನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಲವುಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲಾಶಯ ನವನವೀನ ರಚನೆವ ಉದಾಹರಣೆಗೂ ಸಿಗದಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಈ ಚೆಲುವ ಅಪಹರಿಸಿದ ಚಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾರೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯ ಬಯಸಿದೆ ಅವನ ಸನಿಹ ಈಗ ಮರು ಮಾಮೂಲಿ ಫೀಲಿಂಗು ಮರುದಿನ ಕೂಡ ಇನಿಯ ಬಾರಯ್ಯ ಬೇಗ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಲವೆಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆನೆದು ಹೋದಂತೆ ತಲೆಹರಟೆ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಲವೆಂಬ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೆನೆದು ಹೋದಂತೆ ಆ ಅಮಲು ಗಣ್ಣಿನ ಅಂಧಗಾರನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಹೃದಯ
ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಇವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜಲಾಶಯ markaad i tiraahdo gabadheeda aniga aad baan kuu jeclahay wah gabadheedii dhaawac maa ku soo gaaray garka waa kuuga bataa adiga garkayga wax ka sheegaysaa soo maahan gabadheedii beelata sidaas darteed ayaad u jeceshahay hooyada mar walba hooyadaad shumiskeedaa jeceshahay soo maahan hay jandu maxaa ugu dhacay shalay iyadoo cayaarayso ayaa gacanta dhaawac yar ka soo gaaray jandu xanuunkan gabadheeda uma dul qaadan karto inaad ilaalisay ahayd arjun adiga waad ogtahay aniga ma jecli inay dhibaato soo gaarto sidaas ayayba wax ugu dhaceen iyada mar walbana hadalkayga ma dhagaysato dhowr jeer ayaan kuu sheegay mar walba adiga ay ilaali doontid soo maahan aabbaha haddaa usii sheekaysid waxaad ogaataa inaad daahaysid nakeen waan baxaynaaye soo socyaaqe meeshan inaad sii fadhisid ooma baahna arjun gabadheedii iskoolka markaad tagtay bannaankiisa wuxuu leeyahay meel biyo meeshaasna ma raba adiga inay dhibaato kuugu soo gaarto iska ilaaliya wax walba waan ogahay khataraataa gabadheedi sii jeeso boorsadaada gasho wax walba way ogtahay ka waran gabar fiican ayaa tahay adiga xitaa inaan raacda ayaan jeclaan lahaa waan jeclaan lahaa adinka inaan ii raaco laakiin waad ogtahay shaqo badan ayaa ii taalo okay waan bixinayaa taxadarkiina ha bataya gabadheeda adin is ilaali aadiya gabadheedii maanta si fiican baanu soo baashaalaynaa aabbayla intay jeceshaa adiga gabadheeda aadiya aniga si xad dhaaf ah ayaan kuu jeclahay weliba dunidoo dhan ayaaba adiga keligaa kaa jeclahay run ahaantii gabadheedii aabbaaga aad ayuu kuu jecel yahay laakiin xilligan waa tookadaya waxaan ku weydiinayaa ilaa heerkeedii jeceshahayna aabba aniga cirkii dhulka intuu dhexeyso intaasoo dhan oo ku jeclahay aniga ka waran sidaas miya sidaasoo dhan waad ii jeceshahay aabba laakiin adiga shaqadaa ka shaqaynaysid shaqa halisan waay soo moogid laakiin yaa kuu sheeg waxaas hooy markii abti la hadlayso wax walba markaasaa maqla aniga waa maqla wax walba aabba sidaasaa dhihin gabadheeda aabbahaaga waa qof awood leh lagama yaabo gacmihiisa inuu si saarto weligiis waa dagaalamayaa inuu isdhiibana wax dhici karta maahan mar walba gabadheeda midaas maskaxda ku hay aabba adiga khataraa tahay aad baad umahadsan tahay gabadheeda gabadheedii quruxda badneed yaristeedii meeshaan rabnay waan imaanay halkan tartiib ii fariiso dhegeyso lama filaan ayaan kuugu talagalay kin mar walba maxaad wax ugu sheegtaa aan kuu soo bixiyo okay waa kaa jeclaysookay had diyaar sooma tiid nakeen waa bixinaay soo soc
sorry. aadiya hambeelkaad jeclad ayaan kuu keenay mawabkirkiile ma ku xantoonaysaana waxyar u kaadiya hooya isugu cusub halo janduu may dhibaato ma jirto mugtaa cunugtaa yaraad sawirka qaada oo keliya adigii gabadhaada aadaa isugu soo baxaysaan marka sidaasaa sawir idinkaga qaadee laakiin aadna weydiiso soo ma ahayn haa mudane inaan ku weydiiyey ahayd iga raali noqo lambarkaaga iyo iimailkaaga iga reeb sidaan kuugu soo diro sawirada adigii gabadhaada idinka qaadeen halo kugu dhacayna mudane maxaa kugu dhacay arjun sideed ila hadlaysaa adiga waad ogtahay gabadhayda aadii aniga la'aanteeda inaysan noolaan karin wax walbana waxaa sabab u ah shaqada adiga aad ka shaqaynaysid haddeertan gabadhayda yaa og xaaladda ay ku sugan tahay iyo waxay marayso xilligan maxay samaynaysaa gabadhayda arjun ii sheeg aniga aadiideen waxba kuma dhacaya ka maqin meel walboo jirtana aniga ayaa gacanta ku soo dhigaayo waa ballan kaa qaaday
أوديا mudane run ahaantii kaamirada anaga markii aan baarnay wax cadeyna waa ka wana tanna waxay noo muuqataa ninka dambiilaha inuu ah nin xariif ah xaqiiqatan meesha waa uu xaalufiyaan ku dhahay wax meesha ku haba yaraatee ma jirto balse anaga waan dadaaleyna kiiskan 3 bil koraa la diiwaan geliyay laakiin ilaa hadda waxba kama soo bixin waxa wanaagsan inaan iska xirna asigoo dhan حركة رادينينا اوكي mudane saxafiga kaliya ee burcada sirtooda banaanka keenay saxafiga kaliya ee ganacsatada musuqmaasuqa ku dhaqanto sirtooda banaanka keenay saxafiga kaliya ee musuqmaasuq qarsanaa dibadda keenay haddii aan qaldaneen aniga hadalkiisu sax ma ahana 3 bilood ayaa ka soo wareegatay gabadheeda inta ay iga maqan tahay ilaa haddeertaan waxaad qaban laadihiin marxaladda markii ay meeshaas maraysano idinka uma baahna inaad su'aalo weydiisaan iyo cadowgii qofku uu yahay ee si cad runtaan iskugu sheegno laakiin taas macnaheedu ma cadday qof walba inaad gacan u qaatid ama dhibaataysid mala socotaa inta qof adi dhibaato aad u geysatayna aniga adiga oo ku dareemi karaa balse aniga waan dadaalaynaa ma fadhino oga odiga ilaa ay goorma dadaalaysaan gabadheeda muddo 3 bilood ayaa la leeyahay idinkuna waxaad qaban laadihiin aniga waan aqaanaa habkii loo raadsan lahaa gabadheeda maxaa yeele abeed aniga ah aadiyaa way nooshahay aniga ayaan aqaan sidaan u heli lahaa iyo qaabkan ku soo badbaadin lahaa gabadheeda كما هدلينين مشروع إن هذا ما يسترته أنا مشروع وحن كشقينينا دتك رياضة سيد لو أجانها وحن كهربا مشروع عاد ودو حكتي صار ما يسترن إن هذا إيش يكتب بليس أرجو حسب هذه ويدينيسا تاس إسكدها هدو أنقول له ذاك دونا waxaan rabaa wax inaan ka ogaado arrintan riyada iyo mashruucaaga waxa uu ku saabsan yahay waayahay aniga wax walba ku faansiinayo run ahaantii haddaan riyada wax kaaga sheego qofka markuu asaga riyoonayo waxa fiican wuxuu ku riyoonayo inaan mar walba ogaano oo weliba waqti aan u helno kadib
qofka markuu riyoonayo riyadiisa annaga inaan aragno oo weliba aan xakamayn karno. hadduu xaalka sidaa yahay riyo sidii wax loogu ogaadaa ha laakiin riyo waa la iska dhihi karaa laakiin riyada qofka caadiga uu riyoonayo maahan. riyada dhowr nooc ayay noqon kartaa. mid iska caadi ah. hadda ka soo qaad qof markaan la hadlayno qofkaas hadalka markaan u sheegayno asagana wuu istaagayaa. waxaasoo dhan maskaxdeena ayaan ku kaydinaynaa mar walbana waa xasuusnaanaynaa. dad badan markaan annaga soconayno wayna garab socdaan soo maahan laakiin middaas annaga ma xasuusanno. waxaasoo dhan oo meesha ka dhacayo maskaxdeenna way kaydinaysaa kadibna waxaasoo dhan ayay duubaysaa. waxaasoo dhan mataqaanaa way diiwaan gashan yihiin. markay arrinta sidaas taagan tahay annaga waxaan u adeegsanaa qofka bilaadanka maskaxdiisa inaan dhex galno wax walba aan ka ogaano. qofka bukaanka ah markay maskaxdiisa ay daciif noqoto waxaa la isku dayaa maskaxdiisa in la dhex galo wax walbana lagu ogaado. isla sidaas waaye qofka markuu wax iloobo annagana waxaan isku dayaynaa wax walboo iloobo inaan ogaano oo weliba aan la hadalno maskaxdiisana aan dhex galno. marka habkaan markaad samaynaysid adiga xaqiiqo ayay kula noqonaysaa waxaana dareemaysaa qofka inuu kula joogo. habkan aad sheegaysid ma jiraan cid kaloo lagu sameeyey haa kiisas badan way jiraan. habka hadeertaan qofka maskaxdiisa lagu ogaanayo mid cusub maaha weligeed ayay jiri jirtay. qaabkan dadda ah iyo dadaan ahaynba waa lagu adeegsan karaa. karanaa iyo kuntiibo intuusa ogaanin kuntii hooyadiis qaab maskax ah ayaa labadooda layskula kulan siiyey sidaasayna ku kulmeen. kuntii karanaa waxay u sheegtay ayadii wiilkeeda qaab riyaa inay ku wada kulmeen. haddiiba riyo wax lagu ogaanayo gabadha naadiyaa riyada dhexdeeda ayaan ku ogaan karnaa meesha ay jirto. maya arjun qaabka sayniska haddii loo fiiriyo ani howshaan cidaan u adeegsan kara ma jirto. jando aniga aamin meelal badan ayaa akhriyay iyo waddamo badan markii ay rabaan burxadka inay xog ka soo saaraan abkan ayay u adeegsadaan inay maskaxdooda galaan ayay wax ka ogaadaan. annagana hadeertaan waqtiga wuu nagu yaryahay. maya arjun waxaa loo baahan yahay sharciyo badan inaan u hogaansanaano annaga. qofka xataa nafsadiisa wuu ku weyn karaa. aniga haddana gabadhayda ayaanba la ahay haddana ma raba arjun adiga inaan ku waayo middaas ma ogolaan karo. jando sharci siduu doon ha noqdo aniga ayaa u hoggaansan biliis aniga aan isku dayo middaas waa ku baryayaa. anaga markaa ogaana adiga riyi inaan ku riyoonaysa in kale markaas ayaa baaritaan fiican samayn karnaa. midaasna waxaan u wici karnaa anaka arsi markaas kadib sidaa doona ayaan wax ka dhihi karnaa. waay maxaa ka leedaha adiga run ahaantii sida saacaddii oo kale marka adiga riyooto waxaa loo baahan yahay saacaddaada inaad fiiriso. hal gacan waxay sheegaysaa saacadda hal gacanna daqiiqada ayay sheegaysaa. gacanta kale hadday shaqaynayn midaas waxay caddaynaysaa adiga riyi inaad ku jirtid. geedkan waxaa lahaa jambeel riyadaadoo dhanne asigaan ku soo saaraynaa waa mid fiican. anaga qorsheyna markaa bilowno waxaa laga yaabaa maskaxda buuq yar inaan ka dareento adiga markaas adiga waxaa laga rabaa riyadoo dhan inaan ka soo baxdo. hal mid xasuusnow adiga jambeelkan wuxuu qaban karaa 10 daqiiqo keliya kadib waxaa laga rabaa riyadaas adiga inaan ka soo baxdo isku day. 10 daqiiqo kadib riyada hadda ku sii jirto waxaa laga yaabaa halis inaan gasho. wax walba ku fikiraysid waa inaad maskaxdaada ka shaqaysiisaa. wax walba riyo ahaan iskaga dhadhacsii adigoo soo jeeda xitaa inaad riyoono iska dhig. waxaa loo baahan yahay maskaxdaada inaad ka shaqaysiisid. waxaa lagu tarjumay astaan films. buuqas ku furin tartiib. waxaa loo baahan yahay wax walba maskaxdaada ku jira inaad soo xasuusato.
aadaa isugu nuuraysaan marka waxaa idinka rabaa sabir inaa idinka qaado Sorry. adiga kuma tahay arjun maxaa kugu dhacay aniga waxaan arkay waxyaabo la yaab leh asagana riyada ayuu igu dhibayay balse kadib waan waayey adiga weligaaga sidaas muu dhaqantay bilowga micnaha waa sax arjun isbedelo yaryar ayaa aragta wax weyn ma ahan riyadaana ka soo baxdid ma ahayn yaqaana iskaga jirtid ahayd waxaa loo baahan yahay caddeemo badan inaan ka helno midaasna wax fiican waaye muhiimadeena ugu weyn waxay tahay caddeemo inaan helno ilaa caddeemadaa ka helaynana inaa riyada ku jirtid waaye laakiin ninkaas aniga weligay maana arkin xitaa maskaxdeeda mar ma soo gelin run ahaantii wejigiisa markaan arkay wuxuu ila noqday qof oo nooc kale ah daqiiqad gudaheeda kugu soo laabanaa asiga kuwan uu ogyahay haa asiga waaye riyooyinkai dadku riyadaan ayuu wax ku ogaadaa asiga mararka qaar bukaanada kale riyadooda ayuu ogaadaa asiga dad ma dhibaateynayo adiga waxbaa ka soo qaadin adiga riyada intaa ku jirta haddaa asiga iska hilmaamto riyada kuguma dhibaayo asiga sida saacaddaadoo kale lee ka soo qaada adiga saacaddoo kale ula dhaqan intaa riyadaada ku jirto asiga waa inaa iska ilowdaa waa fahanta soo maahan waa yahay mar kale ayaan isku dayayaa waxaa ku siyaada mudane
gabadha meesha ma imaanin. hadday imaado noo soo sheeg ayada. Waaya mudane. Okay, bye. halo wax ma soo gaateen adiga? waayahay 6 galabnimo ayaan wada kulmaynaa. mudane 5 sano ka hor ayuu u soo gaaray kiiskan aniga. mudane waxaa laga yaabaa arrintan ganacsatadoo keliya inaysan ku jirin xitaa waxaa ku lug leh kambaniyada waaweyn. waxaa kaloo laga yaabaa arjun iyo dad kaloo ganacsata ah inay cadowtinimo ka dhexayso gabadhiisna sidaas loo afduurtay. sidaad meeshaada taagna waxa soo dhaqaaqeen. aniga waan soo ogaanay gabadheeda meesha ay joogto waan huwa haddii aan meesha tagno ayadoo nool inaan ka soo heli doonno. sidaad maxaad u jeedaa? anigoo askariga waxaanan arkin ayaan arkaya hadda. teeda kale gacantaada maxaa ku jiro? ninka afduubtay adiyaa gacanta ayuu shabad ku leeyahay. taas waan hubaa arrintaas inaan caddayn aan ku heli karno. arjun ninkii gacantiisa shabadda ku sawirnayd sax waa la soo helay. adiyaana ninkaas ayaa afduubtay. waqtigoo daqiiqada ka dhiman ayaa soo xasuusatay. feelka markaa fiirina ninkaas farihiisa kuma yaalaan. taas waxaa caddeen u ah ninka diidiyaa afduubtay gacmaan golofis ayaa ugu jiray. sidaad waa kan sawirka waad maasantahay. mahadsanid. aniga ninkan sida u dhaqsiya badan waa inaan ku raadinaa.
cashaysa gabareedii igaraal noqo gabareedii aabbaha caaway ku imaanayaa kadibna wuu kula cashaynayaa kadibna meesha arabta ay ku geynayaa baastada jecladan kusoo gadayaa hadhow ku soo waca gabareedii igaraal noqo subax wanaagsan subax lamid ah gabadhaad maad la hadlaysay adiga hurdayar ayaad u baahan tahay gabadhaad meeqsan ayay jirtaa 5 sano jirtaa iyada sawirkeeda ayaan arkay aad bay qurxoon tahay qorax darjito lagu dalbaya maxaad jeclayd inaan baxno janduga gurigaygu sugayso marka waa inaan baxaa bay mahadsanid arjun hay gacaliso arjun adinka wax cadeyna ma hesheenna xalay dhan aniga saldhig ayaan joognay waxaana raadinayna ninkaas wejigiisa ilaa hadeerna wax haddeenaan kuma hayno waxaa laga yaabaa in loo baahan yahay nin kale inaan raadino arjun adiga nin askariya soo saaxiib lama aheenna ninkaas haddaad garab weydiisatid waxaa macquula inuuna caawiyo wax walbana ay noo hirgalaan isku day ninkaas inaad la hadashid wax walba waan helaynaa waayahay wax yar isu kafee ayaa noo soo karinayaa adigu caawisay ninka iiga ahaa oo gabadhaada afduubta waa imyaankan booliska ilaa hadeertaan asaga ayay raadinayaan muddo 3 biloodna gacanta wax kumaysan soo dhigin ilaa hadeertaan waxay leeyihin waxbaan raadinoonaa firi marka ugu horeysa ani inay imaaday ahayd mideed kale dadkaasoo dhanba anaga iyo hoos imaadaan maogtahay waxaan ku weydiinaa sawirkan cc camera ma qabatayna may mudane dadkan afduubayaasha qorshe fiican ayay soo degeen kaamirooyinka xitaa waa ay damiyeen xilligaas aniguse waxaan ku soo ogaaday riyadeeda dhexdeeda riyahaan ma ku soo ogaateen macnaha qofka asigoo hurdaayo meesha jiro oo lagu ogaanayo maho wiilasha ii shaqeeya hataa arrimaha noocaas waa ii sheegaya ma ogtahay kullaha luulaha dhexdeena war adiga maqal miya caawinaysaa mise maanta waa dheelaysaa si kuwaana la hadlaya macnaha ragga ila shaqeeya maanta oo dhan ciyaarle ma ku jira geedka dhagaha gisha ma ku dhihin waa iigu jiri laakiin wax ku jira mal aawkii kale 130 140 maxay dhaar saaxiib war fiiri adiga aniga shaqo inaan qabtay rabaa tirada igu dibxay tahay inta soo fiiri warqadan mujeda sawirkan ninkan si fiican loo soo raadiyaan rabaa si fiican u fiiriya asigan u baahanahay wax walba uu inoo hagaagay hadaa helo aan sal shaqeyn ala yaan u baahanahay okay madane waxaan ku leeyahay shaqadan ayaga dhameynaayo mahadsanid mudane laakiin soo maasan tahay dhin anaga hal qoysana ma ogtahay ina imaad celis looma baano hawshan waa qabanayna bas la aan wax ma ku qabayeen hadaba oo sheeg ninka afeeri macna kartoon wajigooda isaga ag mooyee shaqooyinkooda caadi maahan way shaqeynayaan caadi ma dadkan teeda kale maalinkaas haddii aad joogi lahayd markino akati maslaxate haddaad joogi lahayd wax walba indhaha ku arkay dadkan macna si fiicana isla shaqeynaa mogtahay lacagay ku shaqeeyaan iyaga marka
adiga waxba ha ka welwelin wax walba anaa hagaajinayo teeda kale waxaad ii dhiibta aniga waa inay igu kalsoonaataa kalsooni haddii aad qabto wax walba aad u baahan tahay si fiican ayay ku dhammaanayeen okay waa isfahna soo maa marka waxba ha ka cabsanaa dhib ma lahan caadi waaye أرجن عدينا داد أركتد ماشي وغطب mudane aniga miyaa xasuustaa aniga si fiican makuu xasuusto waxaan ahaa muddo 3 bilood qofkii gabadhiisa la ahaa ninkii reporterka caanka ayaa tahay waxaan kaa rabaa inaad i caawiso maxaan kaa caawiyaa mudane riyada ma ku aragtay micnihii wejigiisa haa mudane waa arkay laakiin wejigiisa si fiican oon arki waaye xoogaa waxaa iga saarnaa mudane hal daqiiqo maalintaas asigoo kaarka isticmaalayan aragne haa asiga kaarkiisoo dukaanku isticmaalaya sidaad anaga kaarka xogtiis waan soo ogaanay waay aniga fiirinayo kaarka ee shirkaddii kaarka laheedba waxaan rabaa inaad soo ogaatid mideeda kale adiga cidaa ka shakaysantaa may jirtaana mudane 3 qof ayaa maalintaas kaarka geliyeen magacyadoodu waxay keliyiin suniil ifikaas iyo dhirej hala ii baaro dhaqso si fiican u baar waayahay kor u qaad bal zoom ii soo dheh feelkan fikaas furbal
ninka waa ninkan kana si xogtiisa fiican u dhan fiiri ayaan u baahanaa la isoo saaro hasidaad ninkaas sooma jeedido asaga shaabaddiyaa ku dheggan maarta shaabadda gacantiisa ku taal waa asaga ninkan aniga shaabaddan waan arkay haddeertaan waxaana laga baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha leh inaan gacanta ku soo dhigno nakeen entali dhibaataa jirto asiga haddeertaan shil ayuu galay muddo bilooyin ku dhowna kooma ayuu ku jiraa haddeertaan wax hadal lagama helaya ninkan ilaayo isaga ka soo caafimaado shaqadan booliska ee baaritaanka waxay la mid tahay sida looteriga oo kale wax walbana nasiibkaaga ayuu ku xiran yahay kaarka markaad furtid ayaad ogaa kartaa wax walba hadalkiisu sax maaha aniga waan fiicanahay caadi waa midaas adiga gabadhida sawirkeeda ayaad aragta soo maaha ayadaa waxba ii sheegta waxaynay dhahday aabi waa ku jecelahay laakiin in ayada sidaasay dhahdo aniga waqti hore ayaa igu dambaystay aniga waa ku jeclahay aabe ay dhihi jirtayda waa ku jeclahay aabbo adiga ay dhihi jirtayada ayada markaad sidaas idhahayso way kala dhidhigi jirta hadalka mar walbo maxaa kugu dhacay maxaa ka qaldan ayada markay dhalataba dhibaato ayay laga dhalatay wadnaha ayay ka xanuunsaneed aniga haddaan sigaarka iyo qamriga mar hore iska joojin lahaa gabadheeda maanta way caafimaadi lehed runtii adiga ha is eedeenin wax qalada kuma lihid waan hubaa inay caafimaad qabto ahaa way caafimaadaysaa ayada adiya sida ugu dhaqsiyaha badan meesha u joogto waan soo ogaanaynaa annaga adigana waxbana ha murugoonin indhahaagana wax walba ku arag adiga mahadsanid fiiri waa kana joonaa la lahaa ninkaan haddaa helno wax walba oo keenoo naqanayana inaan asiga helno oo ku qasbanna mideeda kale waqti xaadirkan asiga jiimkuu joogaa jiimka haddaan tagno waa heleynaa marka meesha aan tagno hawsheen aan dhammaysano fiiri waa kana jiimka oo jooga meesha laga helayo waay sidaad gacanta ayaan ku soo dhigay lokeeshinkiisa ayaan kuu soo diraa sida ugu dhaqsiyaha badan ciidan ha loo diro
adiya awey هنا فيصل خمسة وعشرين أرد هندي adiya awey ما أخانو مدنا aweyaan ku yidhi يا أنا كم أوجي jawaab fiican waa inaad i siisaa oo ku sheegay mudana gabadhaas fikaas ay ahay mar hore ayuu nidile nafta ayuu dhaafiirnaante aryaa ku jiraan umalaynaa ha filimkan waxaa lagu tarjumay astaan filmis kiiskan sida uu dhaqsiya badan igsoo afjar oo weliba gacanta ku dhig arjun sid adiya ma dhiman way nooshahay dadkana been bay sheegayaan gabadheedina ma dhimanin way nooshahay aniga ayaa soo saaraayo sida uu dhaqsiya badan shabaarka xogtiisa waa inaan ogaada aniga joogaan ku dhagarweynayo sidaya علي sidaad waa ku baryaa gabadhaas ay gudhin waa gabadhaada waa ku baryaa sidaad شمين ده sidaad waa ku baryaa adiya waa idhihiya adiya maaha sidaya adiya maaha soo maaha sidaad سفي عن قدر قامو أسفكنين sidaad هاي maxay taa sababta la aamusan tahay ii sheeg waa ku baryaa riboodka wuxuu soo saaray ila soo socodsiya aniga ay mudane
waxaan rabaa ninkaas dabagal inuu sameeyo weliba waxaan rabaa meel walba saldhig walba iyo meesha toga la soo ogaado ninkaas yaa laga harin warbixintiisoo dhammaystiran aniga hala iisoo gudbiyo waayah mudan anigu hale haddana waa bixi kartaa okatil okiisa iisoo dhaweeya maxay tahay khayr muslimadan aad samayseen adinka sidaad maxay tahayna waxa meesha ka dhacay laakiin sidee ku dhici kartaa weliba saldhig dhexdiisa sidoo iskugu dhex dili karaa vikaas asiga kooma ayuu ku jiray adiga xitaa baaritaan ayaa ku haysay arrintan sidee ku dhici kartaana way adagtaa middaas inaynaan kuu sheego mid la ogaa karana maaha balse vikaas iyo john waxaan hubaa gabadhaas ayagayna afduubteen annaga haata dabagal ayaan ku hayna ayaga gacanta ayaan ku soo dhigaynaa midka ayna baaritaan ku wadnaa hadda wax walbana mar dhow way dhammaanayaan marka iga raali noqo arjun waa ka xumahay may waa inaan wax sameeyaa aaddii aniga way sugaysaa ayadoo aabbeeda waa libaaxna marnaba lagama guulaysto meel walbay jirtaana waan soo ogaanayaa arjun adiga soo ma fiicnadina waan fiicanahay maalmahanoo dhan aniga maskaxdeeda waxyaa ka guuxaya ilaa hadda wax ka guuxaya qofka uu yahay aniga waan fahmi la'ahay wax ma ii samayn kartaa adigoo raalli ah ii sheeg bal inaa ogaado ayaan doonayaa wax walba ay dheesana waan dhegaysanayaa digtoor walba aniga markii aan la kulmo khatar ah waxaan jeclahay xanuunka ahay in aan u sheego si aan ku caafimaado waa mahadsantahay adigana dhibka waxa kuu keeni kara riyada badan dhibaato badanna way kuu geysan kartaa haddii aad sii wadidna arjun waxaa macquula nafsadaadoo dhan inaad ku weysid adiga waayahay yuu ahaa ninka ku imaado halkaas kula taagnaa abinaash ayaa la dhahaa asaga ganacsado weyn waaye waxaa laga yaabaa inaad taqaanid laakiin maxay tahay sababtoo daawada uga hadlaayo wiilkiisa ayaa shil baabuur ku dhintay ilaa hadda asaga wiilkiisa wuu ka samri la'yahay isbitaalkana markuu ku jiri jiray aniga ayaa daaweyn jiray wiilkiisa dhimashadiisa ayuu rabaa inuu iga wareysto qorshahana asaga ayaa maalgelinayo laakiin arjun adiga arrintaas maxaad ii weydiisana ii sheeg aniga waan fiiri moogtahay dadka rabaan inay iga aarsadaan wax walbana waan arkaa balse haddeertaan waan waaye maxaad ka wadaan adiga halo mudane halo mudane ma taqaanaa ninka banash la dhahay 6 sano ka hor isaga badeecadiisii wax walba ribood ayaad ka gudbisay
isaga ilaa haddeertan adiga si fiican uma xasuustid miya teeda kale waxaad ogaataa dhaabac weyn inaad u geysatay ninkaas ninka ma xasuustaa si fiican u fiiri ها waan xasuustaa sidaad barashfaaj afinash barashfaaj wiilkiisa waa ninkan adiga ma xasuustaa ninkaas waa ninka taariikhda lama ilaabaanka aad ku dhigtay ninkan sababta lagu daba socdo wax kale ma waa ninkii tuugnimadiisa adiga dibadda aad u soo saartay laakiin isaga 9 bilood ka hor ayuu shil gaari ku dhintay kadibna dhiiggiisa ayaa loo baahan yahay ayaa la dhahay Bombay Blood Group ya dhiiggan aad arkayso ma ahan dhiig la helay indiyo dhan 100 qofood ayaa laga yaabaa in laga helo dhiiggan adiga tan ayaa cadeen kugu filan arjun maxaa kugu dhacay maxaa ka qaldan
sababta haddii daba socotay riyooyinka sidooda mid moogtahay dhowr nooc ayaa loo kala qaybin karaa way badan yihiin riyooyinka haddeertaan labadeen waad u jeedaa si kiis ayaan ku wada kulannay anigu waxaas haygu akhrin ee sidee waxaan ku dhexnii sheeg micna waxay kula tahay in adig ii sheeg yaa dhab inay tahay riyooyinkana muhiimadoo keliya cool down hay swalin everything waan kuu sheegayaa midada kale adiga shaatigiisidaa nin degan aa u egtayniyo dabeecaddaada iyo boodboodkeeda mislaan ka waran waa iska cadid okay duniyada aniga ay ku tusaayo come imo midaan kuu sheego run ahaantii kan waa laafkayga midada kale ani adi moogtahay riyooyin kala duwan ayaana kulmiyey sida haddaan isku aragna oo kale laakiin waxaad ogaataa riyooyinkan sharin ayaa loo sameeyaa waa la wada wadaagaa dream infusion allah soo hadda sidaad u jeedo riyooyinka aniga hadda ka hor yaraanteedii accident ayaan galay soo shilkii aan galay kadib ani waxaan arkaa mar walba riyooyin kala duwan sawiradan meesha kaaga muuqda ujeedidna waa riyooyinka aniga aan wadaagayo o dhan marka dadweynahana way jiraan whatever riyo la wadaagayo dadkana way kala duwan yihiin haddana waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyay riyada adigaan kugula kulmay oo wax walbana hadda way iska cadiyin soo maahana wax walba aniga ay ku tusahay soo bax soo aniga come on warahedha midaan kuu sheego waxaan waa maskaxaad ujeeda waa maskaxooyin kala duwan midada kale labadeenna haddii maskaxyadeenna aan wadaagno yacni dad kale riyooyinkooda si toos waan u abbaari karnaa laakiin waa garoo mataqaanaa waa markii si saxan ugu dhaqanno haddii wax annaga aan samayna sax yihiin waa caadi wax walba inoo hagaagayaan say kula tahayna amazingkan ma ka heshayna adiga so sax maahan laakiin waxaan rabaa hal qofood oo keliya maskaxdiisa runahaanta waan ogaan karaa qof kale maskaxdiisa midada kale xaaskaada maaragtay waa digtooradda ugu fiican dhanka maskaxda ayadana ciwaankeeda hacker ayaan ku sameeyey gudaha ayaan u galay ka waran tartiib lena ina xoogaada lan u sameeyaane dhibaato kale aniga ma damacsane mar labaad midaasaa isku dayin labada maskax in islahaadaan ayaa muhiima waa in maskaxdood waa inay islahaadaan labada maskax haddii islahaadaan si fudud ayaan wax ogaan karnaa annaga labada maskaxdood haddii islahaadaan ma la socotaa si fudud inaan wax ku ogaan karno laakiin adiga waxa laga yaabaa meesha inaad ku xayrmato sababtoo si aniga camal khibrad inaad leedahay ayaa loo baahan yahay khibrad ma leedahay marka hore aan isku dayo warheedhe adiga hadalkayga ma fahmaysid miyaana maxaa kugu dhacay adigoo marka ugu horreysa isku dayda lakiin dhowr mar inaan isku dayay wax waan kaaga horreyso maahan waayahay qofkay rabtaan adiga maskaxdiisa inaad ogaatan ii sheeg midka xumaa ee gabadheeda afduubtay ilaa hadeertaan kooma ayuu ku dhex jiraa ilaa hadeertaanna waan arki laanaa maskaxdiisa waxaa ku jira warheedh adiga maskaxda maa laadahayna ninka mogta maskaxda haddii gasho asaga uu dhinto adigana waa dhimanaysaa soo maahan haddii aan helayo gabadheeda wax walba waan u awoodaa inaan u sameeyo hadday noqoto dhimasho diyaar baan u ahay ee mar keliya aan isku dayo arjun qof maskaxdiisa in lala qaybsado iyo riyooyinkiisa in lala wadaago way adag tahay midaasna waa caddeyn buuxdo labadiinna qof ka mida hadduu dhintana waa dhibaato arjun waxaas uma adkaysan karaya meeshan waa ka tegaynaana bixi jandu waa ku baryayaa hal mar oo keliya aan isku day waxuma haleeyo hal midaan kuu sheegay waxaad ogaataa fikaas haddii uu dhinto ama waxay ku dhacaan adigana waxay ku soo gaarayo dib dambana uma soo laabanayso middaa la socdaba waayahay aan isku dayno okay problem ma lah geedkan ayaad badhankiisa taabanaysaa kadibna maskaxaada way wareeganaysaa connecti waxaad ku samaynaysaa maskaxda kale markaasna waxaad awood u leedahay qofkaas waxa uu damacsan yahay adiga inaad ogaato waayahay laakiin waxaad ogaataa backgroundku inuu isbedeli doono wax walbana way isbedelayaan ogow yaa hal mid ogow haddii wax ku soo gaaraan middaas adiga ayaa mas-uulka ah aniga haddaba kuma jiro dushan igama saari karto okay haddana waxaa loo baahan yahay maskaxda inaad gudaha u gasho tartiib albaabka u fur gudaha gal marka tartiib open marka hadda fiiri si serious slow ahaana tartiiba loo baahan yahay
walaal yaaq ma ifahantidne caadi iska dhig ninka markhaatiga adi aqoon weyna u leedahay soo maha iga soo dabadir waa sii soconaa okay وريا يا تاينا وريا سيبيا أرجون هدرتان في عنتها أديقة aniga hadeen ma lahayn adiga mogtahay mar hore inaad dhiman lahayd naftaruq jandow qalani bugikeen boskana fiiriya mar labaad adiga ku fikirin rayay la wadaagay inaad samayso hadaba أرجون ها ما سنت sidaad dhiigga listigan ku jiro dhan dadka laga qaaday Mumbai ay ka soo jeedaan kan waa Avinash Bardivach shirkad Kingston Company la yiraahdo ayuu madax u yahay kanina waa Nikhil waa isaga wiilkiisa 3 bilood ka hor ayuu shil galay Nikhil ma dhahdayna qoraal 3 bil ka hor aad qortay ayaan ka aqriyay asaga markuu shilka galay kadib waxa loo baahday asaga dhiiggiisa balse nasiib daro waa la waayay Avinash Bardivach list ayuu sameeyay macnaha Avinash ayaa diidiya u aftubtay waliba dhiig dartiis waa laga yaabaa magaalada Mumbai waa meesha kaliya ee dhiig walba laga heli karo hadiyana dhiiggaas ay leedahay sidaas in loo afdubtana way dhici kartaa okaadi warbixinta adiga xagee ka keentay laakiin ii sheeg riyooyinka la wadaagayo ha macnaha maskaxda qofka bini'aadanka inaad dhex gasho ayaad wax walba ka ogaanaysaa sidii computer lab la garanayo kaleeto anigana meeshaas ayaan wax walba ka soo helay vikaasna maskaxdiisa sidaasaan u galay kadibna xogtiisa dhan aan soo ogaaday maskaxdiisa ma dhex gashan adiga mala kulantayna asaga wax walba ma ku sheegay asaga
laakiinse waxaas caddeen ma noqdaan asagana kuma soo xiri karno maxkamaddana nagama ogolaanayso caddeemaha noocan oo kale ah waayahay aniga qaabkayga ayaan u samaynayaa maxaad ka wadaan anigaa xalinaya middaas mahadsanid arjun meesha inta miyane meeshan waay boos okay sawirka qaad marka marxaba jaka jaka wakaas zumaza boos waa ka qaadaya mujadido qatar ah boos waa soo socda haddaba okay bisan meeshan nairosi miyaar dalac aan ka tagnahay okay naken boos okay marka waxaan ka rabaa laba mid inaad dooratay ninkaas mar walba ilaalaa daba socota fiir sawiradan waa kuwane si fiican u arag mudane laakiin way jirtaa waddaan wax ku ogaan karno saasoo dhan ma u fududa laakiinse annaga waddadeena qatab waan soo saaraynaa mudane ma iisoo ogaan kartaa gaarigan xogtiisa iyo weliba qofka iska leh KA3MV2242 okay mudan waa ku baryaa ninkaas ivanesh xogtiisa oo dhammaystiran waa inaad ii keentaa maxaad diidayn middaas anuu sheex abaaleba la mid tahay fiir waxbaa kabsan adiga cabso cab adi diyaar waa anaa soo diyaarinaya teeda kale avinash goobtii shaqada markuu jooga keligiis way soo mahana asiga arjun 10 daqiiqo soo socda inuu kaca ayaa laga yaabaa adig si fiican ila qabo qofaa imaaday kadibna wuu watay
وسيابا نكان صباح وني سلام ماشي نجوي ماشي معنا صباح waxa cunaysiin bariis baryaani aka kulaysa taariikh hoosh cawi karna haya bilaabay oo kiisa aka kulaata la dhahanaa abitaan way keenaysaa isku aka qownaatan waa kuwa ona yahay basra mideen cunaya la cuno ma hala cuno صحيح وعنا ما نعلمنا بعد ما كنت درجي دقنا بتابع بيها فراسك بيلا مكلا فرا فيري كأشتيسة على الله كأشتيسة محابة دون تيسكن محاداري بيمو أمرامي هاي بلا حبت بروستا أنا وحما أبانتي إذنك إيشاق بها وكواب حتى مرتي إذنك من يوصل درها أوكي عونا جكاي أتيت له عنو ليه لوزة عونا لوزة بعد هاي برياني إيجا ورا ما أوكي مركا هذا waxaa idin ka rabaa xogta beelo way noo lagsir way xogta masheegina anaga waan ka wiyo wanuunka okay marka qaabka igu sheegaysaan idinkoo jibi deganaa rabaa xogta inaad ii sheegtaan oo wasalolka information xog ma dhahdii siyaa gaarigeeda meeshan in laga gadi ayaan ognaa annaga marka xogta faahfaahsanaan rabaa inaan idinka ii sheegtaan midaan sir waa maano ma la sheegi karo noocaas qalad waay be yaabay ona ku waxba ma ogni be waxaan ognaa waxa ognaa ma leh macnaha marka wax cunto sheego xogtaan rabaa ii sheega maxaa kale hadal hadal wariyaa sheega aaway aadiyaa xaggeed ku haysaa maxay tahay sababtaad listigaas u samaysay aniga ma aqaano adiga waxaad ka hadlayso waxay ila tahay in aad qaldan tahay marka meelahaas kale ka raadsaa baa dantaada waxay ku jirtaa inaad ii sheegto haddii kale wax xun baad la kulmaysaa runtii aniga dadkayga way og yihiin adiga inaan kula joogo adiga aniga inaa isku kii dhiibta ayaa kuu wanaagsan haddii kale waxaad ogaataa dadkayga cirka ayay kuu dirayaan way ku baabaynayaan waryaa doqoyaho aniga mid taqaan adiga qofkaan ahaadna mala socota iisha guryaa ciidamadeeda jikaarta iyo dhammaantooda way ku jarjarayaan joog haddii kale waa markii ugu dambaysay aan ku weydiinayay si tartiib la igu sheeg haddii kale waan ku dhibaataynayaa okay isdiji wax walba aniga ku sheegaynayo ii sheeg runtii aniga sanadka hore wiilkayga shil ayuu gala shilkaasna shil xun ayuu ahaa wiilkayga dhiiggiisa qof le camal ayaan raadinaya aniga dhakhtarkana wuxuu ii sheegay dad fara badan anigana listi ayaa samaystay intaasoo keliya ayaan ogahay wax kale ma oga aniga warkaaga dhan waa been waxaan waa qorshahaagii dhiig dartiisa ayaad u afduubatay mudan waa ku baryayaa ii sheeg aadiya aaway ma aqaana gabadhaada meesha ay jirto waryaa gabadhaada febraayo ayaa la afduubtay waryaa wiilkaygana wuxuu dhintay mataqaanaa 4 janaayo ma fahantay marka adiga waad qadantahay sax waryaa adiga waxaad ku dheeraysaa musuqmaasuqa sida loo soo saaro soo maahanna waryaa adiga waxaad weyse gabadhaada ma fahantay anigana runtii waxaa waaye wiilkayga wiil aabbihiisa haddii uu waayna waad la socotaa xaaladdeeda meesha ay maraysaniyo run ahaantii lama qiyaasi karo laakiin waxaad ogaataa aniga inaana ku dhaafaynin waan ku dilayaa maanta sidaa haddii ay tahay waa kuma qofka afduubta adiyaa wiilkayga oo keliya maa dhiiggaas iskala waryaa qof kale ma laha kara miyaa dhiiggaas ii sheeg waraa ma ka fikiraysid sidaa haddii tahay listigan qof kale ayaa sameeyey mudan waa ku barya adiga caawi biliis garabaan kaaga baahana ya caawi sabab aan ku caawinaa ii sheeg waraa
maxaan kaa caabinayaa maxaana iga kale inaan ku caabiyo waryaa mudane waa ku baraya mudane raali noqo waryaa lagu haydaa ayaan ku dhahay ma ku caabinayo iga raali noqo mudane doqon baan ahay oo weliba waxba aanan ogeyn iska kii caafi muddo 3 bilood laga joogo daqiiqad walba saacad walba sakin walba aniga xanuun oo keliya ayaan dareemayay noloshana inqaaboo keliya igu noqotay mudane midaasoo keliya iga caawi oo ku baraya biliis mudane anigana waxaan diyaar waay wax walbood rabta inaan kuu sameeyo doqonyo xunka ah haddii aad idhahda xitaa dhimo diyaar baan waa inaan nafteyda kuu gooyo waan ku baraya iska kii caafi mudane mudane icaawi oo ku baryayaa okay adiga meesha ayaa ka boodaysaa haddii aad badbaadda kadibna waa laga yaabaa aniga inaan wax kuu sheego bood marka isida sabab waryaa ma cabsatana adiga ii sheeg adiga waxaad tiri waxaan ahay aniga doqon oo weliba waxba ogeyn wiil waalan ayaa tahay aniga markaas waxaan bilaabay listi inaan samaysto laakiin maxaan samaystaaba isla markii wiilkayga ayaa dhintay wiilkaygana qof ayaa qolka ugu galay wuxuu rabana wuu ka samaystay wiilkayga qofkaasi waxaa sameeyey qof kale ma ahan waa qof runtii listigaasi u baahnay qofkaasna qof kale ma ahan ee waa organ aniga aqaano organ ma idhahday listigaasi qofkaan kuu sheegaya haddii ay jiraan sida ugu dhaqsiyaa badan listigaasi wayna wax ka ogaataa qoftan ها maxaa ka rabtaa adiga halo mudan waxaan kugu wargelinayaa gaariga qofka iskale waa si dhaarte kiiskaana lug ayuu ku leeyahay waayo qofka listiga dhiibay qof kale maahan ee waa asiga maxay tahay dhibaatada haysato buumika wadnaha ayay dhibka qabtaa iyadoo waxay u baahan tahay wadnaha qaliin in loogu sameeyo yaa tahay maxaan ka caawiyaa waxba ha ka ololin haddeertana soo baxayaa adiga ma wixii kula tahay waxaan sameynaa aniga inaan ku qaldanayna adiga sideed iigu samayn kartaa midaas maxaa diidayo wax qaldan miyaan sameeyey gabadheeda inaa badbaadsado xaq uma lihi miya aniga ii sheeg aniga waxaan u malaynayaa adiga inaad ifahmaysid balse ma dhicin adiga niyadaada khayr u sheeg oo waxaan kaloo rabaa hal mid inaan kuu sheego gabadhaadii way nooshahay ayada doqoyo xunkaa aawi gabadheeda bastaryo
aniga xataa moog meesha joogta ayada fikaas ayaa og gabadha meesha joogto john ayaan ii sheegay fikaas gabadha ma dilin meel ayuu ku xariistay anigana waxaan u diray asaga dad dilo balse markuu ogaaday inaan usoo diray dad dilo asaga gabadhii meesha uu ka wareejiyey oo wuxuu geeyey meel kale qorshahaygiina asaga ku ciyaaray gabadhaas meel aanan ka raadin ilaa hadda ma jirto aniga kaliga xataa ma raadin ciidanka ii shaqeeya xataa waan u diray meel walbana waa ka raadiyiin ilaa haddana ma aysan arkin ayaga iyo dhul meel ay joogto gabadhaas waa la laayahay balse nasiib wanaag maalin maalmaha ka mid a gacanta ayaan ku dhigi rabaa asaga sidaan u bursanayay meel buurah ayuu ka dhacay oo lugtahay oo baxday meel duurah ayuuna ka sii dhacay dhaawac ayaana gaaray kadibna isbitaalka ayaan geynay dhaawacii soo gaara dartiis ayuu asaga kooma la galay dhakhtarka sidaas ayuu yidhi rajadeediina sidaas ayay ku burburtay aniga gabareedii wadna waan u waayay runtii maxaa yeelay gabadhaada aniga gacanmaba ku dhiganba wax walbana waxay u dhaceen adiga daraadda hadda waa inaan ku mahad celiyaa adiga marka waxaan ku leeyahay mahadsanid maxaa yeelay waddadii gabadhaada aan ku heli lahaa adiga ayaa i tusay riyadeenna ayaanan mideynayaa aniga si gabadhaada aanu helo runtii riyadeedii iyo rajadeedii burburtay ayaad adiga mar labaad soo noolaysay balse aniga hal mid ayaan kaa ballan qaadaya adiga taasoo ah gabadhaada markaan la kulmo wuxuu sheegayaa inaad adiga jeceshahay gabadhaada weliba aad u jeceshahay oo aadan ka maarmin بص واحنا موجودنا انا انتين كفتشين انتين كراديين انك ايشك يا اخي المدينة waxaan iga rabaa inaad meeshaas ka soo fiirsaan marxaba soo baxna كان بوسكا ميلان كان في فيري بسحبه حارادي نبه بوسكا مدن maxaa kugu dhaca mudan ilaa hadal mudan اسمع بوس ما حد اسمه بوس جوكس بوس مضلها فيري انا وافي انا هاي انا استاك يا اخي هاي سابا حالك هاي بوس جوكس ما حد يقول يا اخي ايديك مايا anigu waan fiicanahay dakowle waxaan ka rabaa inaad baxdo oo gabadhaas aad soo badbaadiso marka orod bax adiga orod bax hoo kanne hor u qaado bax ka gaar marka adiga sii fadhina orod bax ka gaar boomi xaaladeedu way xuntaa iyadana kooma ayay ku jirtaa xaaladeeduna way sii leedataa hadalkaasina adig ku dhaho ilmo wanaagsan waan ka xumahay adiga wax walba waa inaad diyaar garowdaa waaya doctoreso
adiidyaa mar dhow gacanta ayaa lagu soo dhigayaa kadibna wadnaheeda ayaa lagu gelinayaa adigana waad ii caafimaadaysaa wax ku gaaraya haba yaraatee ma jirto intaan noolahay aniga kadibna labadina waa israacaynaa waxaan ku geynayaa meeshii adiga aad jecleed waxaan ku sii doonaa baastadii adiga aad mar walba dalba jirtay wax walbana ku samaynaya gabadhiidii waad caafimaadaysaa adiga Toreso adiga ma taqaana sida riyooyinka loo qaybsado yaa sameeyana halo jandu maxaa kaa qaldan adiga taleefankaaga meeqa jeer ayaan soo wac maxaad iiga qaban weysay maxaa intee joogtaa jandu aadiya way nooshahay maxaad i dhahday haa jandu ayada ma dhiman sidaad ayaa wax walba ka dambeeya hadduu ku soo waxana waxba ha u sheegin ma fahantay arjun maxaad ku hadlaysaa adiga fikaasoo keliya og aadiyaa meesha ay joogto aadii meesha ay joogto habka riyooyinka loo wadaago keliyaan ku ogaan karnaa maya arjun aniga ilama ahan qorshahaas inuu shaqayn karo halis waaye yaqa waxyaalaas ma samayn karno aniga weligay ma samaynin laakiin waan isku dayi karaa soo ma ogid fikaasna wuu yaqaanaa qaybta riyooyinka dadka maskaxdooda sida loola wadaago anigana waa isku dayayaa wax walba adig sameey waa ina shidaa mashiinka riyada lagu wadaago okay bye Alakis. maxartoore maxaad u baantay sheeg aniga ninkaas ayaan rabaa taasna waxaan ku heli karaa aniga maskaxdiisa inaan dhex galasay baqshaqiyo ka wareeya noocaas miyaad imalaysa aniga waxaan kuu sheegaya malaha aamus kalab iyo cunka dhaqso samee waxaan rabaa aniga دكتوريش ودنا سفيان ولح ما سويسها istaag hore ha isdhaqaajinin
إيشك قبدي حقابي جرتا إيشك هديك أنا ما أخانو مضح أنا حبتك هاي دفنة نص هذا هديك لون كنت ليه كلب يا حنكا إيشك كلب يا حنكا إيشك قبدي عاود إيشك قبدي حضر إذا قص ما نصعتها ولقي إنا كنت أسجل قبل صنور إنا أركانيك إيشك مدن مسكين حكرتها وكبريا مسكين وقبل السكرة في مدن مسكينة ها مدن قبل ما نوشنا قبل هذين متو يا أم قنا إيشك قلبي إيشك قبل حاجة جبتها حضر هديك كوا كاسينا وحول بودعي هذيك درتها هي كل عاية فيكاس وكبريا مسكحة كشقيسي وكبريا أنا قريدا أنا صار حقري وحول بيشك أنا قبل هذا كلية أقمشي أي جرته هذا كوما ياد قشي وحن صار حقلي ريدا سيان كوي ديو قبل هذا مشي أي جرته وكبريا فيكاس إيش قبل هذا حاجة جرتانا